xukuumadda Somaliland ayaa tarxiil ka bilowday gobolka Sool magaala madaxdiisa Laascaanood. dadka la tarxiilayay ayaa ka soo jeeda dalka Soomaaliya. dadkan la tarxiilay oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in aan la soo socodsiinin in laga saarayo dalka si ay hantidooda uga urursadaan. waxaanay sheegeen inay ku waabaristeen gaadiid waaweyn iyo ciidan lagu keenay guryahooda. iyagoo arrimahani ka waramaya ayaa waxay yidhaahdeen aniga maslax Ibraahim Maadi cilmi baa la yiraahdaa gobolka Laascaanood saaka tan igu qabsatay hadeerna nolol naf ku jirto gaari saaran ma ahay waxa iiga wanaagsanaa inaan saaka maslax baa Laascaanood ku geeriyooday leegu yiraahdo ayaa ii dhaantay nolosha Laascaanood saaka la igu qabtay weligay Soomaalina kama dhicin saaka caruurtaas arkaysa anagu iska jijiifna iska hurudna ayaa noo yimid war qofka bini'aadamka ee xoolaha hataa waa la qiimo loo yeela nonoma oran wariyaa wadanka laga saaray biri ama saadanba maryahaaga meero ilmahaaga sahay u sii sameeysa talayma oran aroortii anagu jiifnani gabadheeda la soo aqabtay gaari un bay soo saareen hay soo saareen ma xuma haday islaamnimo ay jirto islaamnimo ay ku dhaqmayaan war kuwan inay wax u eegan baahan ee kuwaasaan waday kuwaas saaki ilaahay baan kugu dhaariyay tan isaaka afka halkan ba hadeer biscuit lagu sii magaaladan Burtule markaan soo gaaray ayaa wallahi biscuitka ugu horeeyay hadeer halkan lagu sii isaaqadoodii maanta 12 saasay ka dhigeen waxa iga sii daran kubi xalay 5 saxaabeenimo ay guriga lagala baxay ay meel ay la tageen kuwaas iga sii daran marka walaalayaal deena ma qabato islaam baan hay shariicada islaamka sidaana kulay ma dhigto maxaa kalifay inagoo muwaadiniin Soomaaliyeed in dhul Soomaaliyeed magaalada Laascaanood dhibaatada inta leeg waxa weeye dadka Soomaaliyeed u gaarsiiyay kulay dhibaato maanta aan samaysanay ama anagana nagu helay oo maanta naga jaasinayna ma jirto caruur ma hadda ka maqan inta isticmaal caruur ba iga maqan waayo walaalkay caruurta uu dhalay gabadhiisi gaariga iga horeeyay saaran tahay labadeedii caruur caagu meelan ku sheegi kar ma garanayo inay dhulbaanta qaxaysteen inay dadka kale ay u galeen garan maayo waayo waa caruurteed un bay ka matay walaalkay oo iga yar baa dhalay laba caruur oo ka maqan tahay mid hadeer lagu sheegay halka ku dhashay laamiga kuwa la mariyay taydan hadeer halkan sakaraad ku aad arkaysid hadeer adigu dhakhtarka ii geeshay aad ii soo baartay hooyaday hadeer meel kuma sheegi karo guri baa lagu qufulay gabar kale oo walaashayda guri bay ku qufulan tahay ay gala soo hadashay wallahi oo billaahi oo tallaahi nolosha oo maanta Laascaanood nagu qabtay cudur ilaahay agtiisa noogi mid nagu dhac corona virus kila sheegay baa noo dhaantay inuu nagu dhaco meesh ku dhamaan meesha khair ku jir ilaahay na waafaji de ma sha Allah hadeer markay gabadhayda ay taahaysay maanta dhulkan soo maray wari istaag aan ilmaha yaraan koobshaha u iibsade war ilaahay ma idin ku dhaarimeed wax dhan waan bartime maanta dhan waa bariyay wala ii istaag way baawarta Burtule hadeer markaan soo gaarayna gaari dhan raashin oo raran baa la iga daba keenay markii gabadhayda taahaysa la arkay inta la orday ba dhakhtarka la igay de ilaahay ba ma hada iskale ahsaanka ay sameystaan ilaahay ba waa maalguday de marka waxaan idin ku codsanaa ilaahay idinka insha Allah de kulli hadeer gaaran saarnaa wallahi meel nagu wada garan mayno hantaa naga maqan xoolaha naga maqan ciyaal baa naga maqan dhar ma soo qaadan ciyaalkeena caanahooda waana noo soo diiday waxa naga maqan wiil baa iga maqan ciyaalkeena oo dhan baana noo diiday caanihii baana noo diiday dhar ma soo qaadan waan dayacanahay waan darxumaysanahay sila ay saxariir baan ku soconaa ciyaal baa nagu wada xunqaacay naagihii baa wada xunqaacay annagoo dhan wada sakaraad baanu nahay waxaan idinka doonaynaa madaxweyneena sharafta lahaa waxaan ka doonaynaa in lala soo dhaweeyo dal iyo dibad meel kasta oo la jooga in lala soo dhaweeyo baan u baahanahay dadweyne waa idin salaamayna muuse bixi waxayna ugu soo sameeyeen caruurteen iyo aabaheen oo 9 jir ah anigoo dacsi wadanin qabo wadanin ba gaari naga soo saar caruurteen soo kaxaysana markale wax baa idin sheegay muddo baa idin soo qabnaa soo baxay xaafiska imaadana waan keenay muddada soo waxayna dhay wax dib uma noqonaysan aruna ma soo kaxaysanaysan alaabtii ma soo qaadanaysan orda gaariyaashan qor caruurteen ka soo tagnay aabeena ka soo tagnay handadani hore waan ka soo tagnay kobol aan ba ka socona gabsaar la'aan ba ka socona wax adduunyada ku dhacay babligiis naga soo riday ilaahay baa ugu maxdinay ilaahay baa markaas noo qoray Allah saana sheelad sanad digana 5 caruur aan ku dhalay wiligay dhibaato uma geysan xalay 7 habeen marka ahayd baan noo yimid anka meherada fadhina cuntada noo bishahay ayaan lagu yirso istaaga waan tagnay anaka maxay nimankii meherada joogay aan wada joognay anaka nimankii waan la wada kaxeeyay meeshii baan tagnay gabar yar bay la socotay xitaa gabar yar caanihi intaan qaala weydiideen kawahan xiran la way diideen xitaa xiran meeseen keen ilaa xiriga waa cagcadahay cagcadaan baan ku socdaa
maxaan tagnay garoonka cabdi baan la geeyay lagu xareeyay oo baahi xitaa biyo lama siin oo shaahna lama siin oo ilmihii xitaa soo nooga ooyay xitaa maxaa idin ku dhacay marka hadal war ilmaha waa ooyay maxaan siinaa nabada darantiin waxaad ku doontay wadinkiina aad oo